halkani waa jasiiradda muranka uu ku jira ee Dhaymaluula annaga halkan uma imaan inaan ku dalxiisno balse waxaa halkan ka dhacaya shir uu iclaamiyey fanaanka Qamar Suugaani ee jinka iyo insigaba u heesa waxaa goobtan ku sugan ergooyin saraakiil ah oo ka kala socda ciidanka xoogga jinka Soomaaliyeed iyo insiga saraakiisha jiniga waxaa hogaaminaya General Buukac Shuushu Haguuf Asilad waxaan aniga nasiib u yeeshay in aan noqdo wariyaha kaliya ee shirkan lagu casuumay waxaan hore u soo raacay wafdiga jiniga ah ee uu hogaaminaya General Buukac Shuushu Haguuf Asilad sidoo kale madasha lulcubeedna waa la casuumay waxaana hore ii soo kaxeeyay saraakiisha insiga ah ee shirka ka qayb galaya uu hogaaminayo General Bafo ujeedka shirkani waxa uu ahaa in saraakiisha jiniga iyo saraakiisha insigaba ay iska kaashadaan sidii loo baadi goobi lahaa halka saxda ah ay dunidani quruxda badan uga taal jasiiradda Dhaymaluula balse miiska wada hadalka shirka ayaa laga daaray heesta Qamar Suugaani ee Dhaymaluula si wax loo hubsado saraakiisha jinka iyo insigaba waxa isku raaceen inaysan jirin jasiirad la yiraahdo Dhaymaluula balse waxa fanaanku amaanaya ay tahay gabar haddana gabadhii ayaa muran weyn dhalisay waxa la isku qabsaday Dhaymaluula waxa ay ka dhalatay qoys Soomaaliyeed oo jini ah iyo maye waxa ay ka dhalatay qoys Soomaaliyeed oo insi ah wafdiga aan la socday insiga waxay ku doodayaan oo ay miiska soo saareen cadeyntan oo uu hobalku afkiisa ka qirayo intan daban wali arkayay intan de ku raacinaago intan dala daawanayay tano kale wali madaadin madugan quruxdeeda waana taliyaha ciidanka xoogga jinka Soomaaliyeed General Buukac Shuushu Haguuf Asilad oo aad uga xanaaqay cadeynta aan sal iyo raad ka lahayn ay soo bandhigeen saraakiisha insiga ah ayaa waxa uu yiri insiga waxa cadeyn ugu filan erayadan uu fanaanka afkiisa ka qirayo halkan marayo ku dumaya sida loo abuuray iska dhufta ku heesay markuu dhaka farka yaabay malaha tani waa dhamaysa dhisnabiyaadan maaha marka dooda la isku mari waayay kadib ayaa waxa go'aan lagu gaaray in la magacaabo guddi saraakiil ah oo ka kooban 6 xubnood oo isugu jira jin iyo insi si ay dhalashada Dhaymaluul baaritaan sax ugu sameeyaan jiniga iyo insigaba jahwareer badan ayay ku jiraan sababtoo ah fanaanka Qamar Suugaani ee jinka iyo insiga u heesa marka uu keenay heesta Dhaymaluula ee uu ugu magac daray jasiiradda Dhaymaluula kadib muran weyn ayaa dhashay waxa muran sii dhalisay waxa ku jira heesta qeyb uu leeyahay gabadhan dhashi nabi aadan ma aha waxa la isweydiinayaa haddii aysan ahayn dhashi nabi aadan hortii waxa jira malaa'ig iyo shaydaan hadda annaga ma dhihi karno waa malaa'ig mana dhihi karno waa shaydaan Qamar Suugaani iyo abwaanka erayada sameeyayba dadweynaha waxa ay ka sugayaan cida ay tahay Dhaymaluula jin iyo insiba labashani waa qof gaara gedkuma una konka